the whole of education have been divided into the divisions such as primary education, secondary education, and highest secondary education. All divisions of education have their own importance and benefits. Primary education properties base which helps throughout of the life. Secondary education properties the path of the further study, and the highest secondary education properties the ultimate path of the future of the whole life. Our good or bad education decides that which types of the person we will in the future. Finally, I want to thank our special guests and who has sacrificed their precious time for us. Our teachers who have put great efforts and enlightened us, and also our parents who stood beside us to make our dreams come true. Thank you for all Muslims and brothers. Assalamu alaikum. farxadda labaad waxay u tahay maamulka iyo macallimiinta oo shaqadii shalay ay bilaabeen maanta taam u noqotay markii loo fiirsay ardada qalin jabisay ayaguna farxad ay dareemayaan. waxay kaloo farxad u tahay ardada qalin jabisay maadaama shalay goolka ay dhigteen maanta ay gaareen waxay u tahay farxad kale waxay u tahay waalidiintii ardada kuwaas oo mirihii shalay ay beertay maanta guranayaan. marka aniga iyo ardada aan magacooda ku hadlay ay ka qalin jabisay iskuulka Suldaan Axmed Nuur waxaan leenahay hambali ardada qalin jabisay farxadiina waa farxadeena. markii qalin jabin la yiraahdo haddaan kaftan yar ku daro maalintii aan qalin jabinaynay qaasatan groupkeeni galaadkeeni anigu waxaan u haystay inaan waxbarasho dhan ka qalin jabiyay. maadada ugu dambeeyay imtixaanka markaan galay qalinaan cusub oo labaha watay waa jabiyay sidii inaan waxbarasho dhan ka qalin jabiyay. xafladaan oo kale markaan dhiganayna xafladii qalin jabinta mas'uul ka mid ah mas'uuladii ka soo qayb galay xafladda oo qodba la siiyay ayaa waxa uu yiri ardada ma aysan qalin jabin laakiin waa qalin bedeshay. dulcdiyo maasada anoo siiba dabagelin dunida nin eegaba ma dayaca nolosha daabiceedu yuulumin daada kale waxay tahay duruuf iyo macluulba daashatay dalkayni waxay doonayaanoo dawarsiga ka dhicin kara oo cilmigoo la dalbo dowga jirana loo maro dufciyadii dheerataba hadday dabad u dhoofaan dalkan yaa u horeeyo dugaagan ka dhicinaya waxba deelayda iyo anoo daliil ku dheeraan waxaan dooda kaga haray amaan ula dan leeyahay doorkii mudnaanta ha u dayma la'aanina. dalku wuxuu u dilan yahay ruux dabaalo weeyaan aayaha dambeeyana lama duugo weliga ee doqonnimo ka dheeraada u danqada dahsoonaha aan dunida soo gaarin ee waa jiilka soo kori doona ama dhalan doona macnaha. deegaanka taariikhdu waa dogma guuraan ah dadaal dheerna loo maro ninkii doonayo haddayin wixii dilaya laabtaada dakhriga noloshaada ruux walbo dadaalana marbuu guusha doorka doc nabada la seexdaa ku daydaan dadkoo idil amay daba kacaanoo dacadnimo ku raacaan waa dardaaran wagar giddigin u dowgala oo hudayma la'aanina. adduunyadu sideedaba waa silsilado meeriyo saacado wareegiyo subax iyo habeen iyo waa saban diraac iyo siiga iyo dabayl iyo jawi lagu sambooriyo waa colaad siloon iyo abaar soo siyaadee marna sanad barwaaqiyo waa sagal guhooriyo samo lagu caweeye maamulkeena sare oo wax badan oo samraayiyo arday haysalaan guud. hadal waa su'aal iyo jawaab lagu salgooye sadarkaa hor muuqda waa su'aal madoone iskuul loo sinaado bulshada oo dhan saxa iyo macadkiisa iyo baar dadka saaciidayo saamigii waxbarashada kii lagu salimayo kaligii la siiyo Axmed Nuur Suldaankow saqiir iyo kabiir iyo waayeel 70 jira kii sida wax loo qoro ama sawdka loo karo sahal iyo si fudud iyo sarbeeb ula wadaago saldhig lagu bilaabo golihii samaanto horseedkii dalkayga dadka saaciidayo
أحمد نور سلطان كو دعان كوكو سغوتا عدو كوما سيارتي ربي وكسما بيح سلامك بعدي runtii aad ayaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka munaasabadan ama xafladan ardayda maxaa la yiraahdaa ka qalin jabinaysa dugsiga sare maxaa la yiraahdaa Suldaan Axmed Nuur runtii Suldaan Axmed Nuur marka aan maqlo waxaan xusuustaa Suldaan Axmed Nuur shakhsi caynkee ah ayuu ahaa qiimo intee la eg ayuu bulshadan ku dhaxlahaa waxaan leeyahay haddaad maqashaan magacaas de wuxuu naga mudan yahay duco ayuu naga mudan yahay aan u duceeyno waa mid ka mid ah hogaamiyaasheenii madaniga ahaa kuwii ugu qiimaha badnaa waan u duceynaynaa naxariistii janno Allah siiyo sidoo kale waxaa mahad celin mudan hay'adda dhistay iskuulkan iyo injineerka qaabeeyay iskuulkan oo run ahaantii aan dhihi karno in uu dadaal badan ka muuqdo waxaa kaloo mahad celin mudan maamulka iyo macallimiinta gaarsiiyey heerkan maanta aad ku gudubteen in la iska gudbo ma sahlana foonfoor in laga baxo wax fudud ma ahan waa wax dhib badan dhibkaad soo marteen idinkana waan kaga mahad celinaynaa waxaan rabay wax yar inaan ku darsado intaas ka bacdi iskuulkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Suldaan Axmed Nuur Suldaan Axmed Nuur waxaan uga fadhinaa iskuulka la yiraahdo taariikhdii Suldaan Axmed Nuur aan uga fadhinaa runtii aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo maxay taane xafladda qalin jabinta ardayda dugsiga sare form 4 ee Suldaan Axmed Nuur 2015 ayaan ka soo qayb galay hadda koor sida aan filayo dufcadii ugu horeysay inay ahayd aan jeclahay waxaan rabaa markaa inaan wax yar ku iraahdo guud ahaan ardayda meesha fadhisa hadday tahay ardayda hadda qalin jabinaysa iyo ardayda hadda caadi iskuulka uga tirsan intaba waxbarashada caadiyan waxa waaye dhowr nooc isugu jirtaa waxbarashada caadiga ee formalka ah iyo maaragtay waxbarashada kale ee qofka asagu uu maaragtay noloshiisa isku bari karo marka mid formalka hadda waaba heesaan qaarkiina hadda qalin jabinaya qaarna hadda wadada soo hayaan laakiin waxaan rabaa inaan idin kula dardaarmo in aad xoog saartaan waxbarashada maaragtay self study-ga ah ee qofku uu ku horumarinayo noloshiisa caadiga ah si uu maaragtay wax kala badan u sii ogaado oo uu ahaado qof mar walba diyaarsan sidoo kale waxaan bogaadinayaa galabta la qaybsanayaa farxadooda ardada muddo dheer soo waday waxbarashada halkaan galabta ku qalin bedelanaya isla markaana doonaya waxbarashadoodii inay hore u sii wataan farxadda galabta ka muuqata waxaan leeyahay waa la qaybsanaynaa ayaga iyo waalidoontoodaba wayna ku mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen in badanoo waxbarashada isku xilqaanta marka hore waxay sameeyaan meel dhexe ayay uga haraan markaasay waxay dhigtaan waxyaabo aan habboonayn ku laabtaan sida isbaarooyin iyo waxyaabo la mid ah iyo caasi waalidiinnimo iyo waxbarashada inay jaraan dhinacyo kale ayay u laabtaan sida ay waxbarashadoodii aasaasiga ahayd uga guul keeneen oo ugu dadaaleen waa ku mahadsan yihiin runtii waana wax weyn oo qofkii wax fahmi karaa u muuqda waxaan rabaa marka waalidiinta intaanan gelin qodobka waalidiinta iskuulkan Suldaan Axmed Nuur waxaa la furay 2011 aan iraahday ayadoo markaas la furayay baahi weyn ay ka jirtay cadaado iyo nawaaxigeeda isla markaana uu baahidii halka ka jirtay wax badan ka daboolay waxaa xusid mudan dufcadii afraad inay tahay galabtay dufcada qalin jabinaysa ee dugsiga sare ka baxaysa sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qof kastaaba inuu ku shukriyo waxbarashada u timid deegaankiisa iyo iskuulkan oo kaalin weyn ka qaatay degmada Cadaado waxbarashadeeda haddii uusan jiri lahayn in badan oo hadda waxbaratay waxaa laga yaabaa inaysan waxbaran lahayn
ilaahay ayaa ku mahadsan sidoo kale waxaa loo baahan yahay waalidiinta iskuulka Suldaan Axmed Nuur oo ardadoodu ay wax ka barato inay la socdaan ardayga dhaqdhaqaaqiisa waxbarasho in badan oo waalidiinta ka mid ah waxaan uga mahad celinayaa fursaddan qaaliga anoo galabtii ka faa'iideysanaya sida ay ardayga waxbarashadooda ula socdaan ama asbuucii ama maalin walba ay su'aal iga weydiinayaan waalidkaas runtii su'aashiisa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah ardaygii waxaan dareemayaa canaanta aan anigu canaananayo kaliya inaysan ahayn ardaygii inuu wax ku baranayo laakiin haddii waalidkii daba joogo uu la xisaabtamayo inuu ardaygii aan ogahay inuu wax baranayo kuwa badan oo ka mid ah waxay igala tashtaan habka ardaygu uu guriga markuu yimaado la rabo in jadwal lagu sameeyo xilliga kiciya kuwa ilaaha waalidiinta ku arkay 9 saac ma toosiya waa sax waa ku maadsan yihiin waalidiintaas waxaan rabnaa marka dhammaanteen inaan ubadkeena si ay waxbarashadoodu ay u noqoto mid muhiim ah isla markaana ayaga iyo ummadda kale intaba anfacda inaan ka wada dadaalno waxaad ogtihiin macallin iyo arday kaliya waxbarashadu inaysan ahayn ee loo baahan yahay waalid abaabulan oo kaalin ka qaata waxaa loo baahan yahay ardayga waxbaranaya ruuxiisa in la daba joogo in la dhiirageliyo in lala socdo oo la yiraahdo haye maxaa dareensan tahay maxaa kaasiya ayadoo haddana dhinaca kale lala xisaabtamayo oo waxbarashadii lagu daba joogo haddii ardayga wax walba loo awoodo oo la siiyo si aan la dhiiragelin oo waxbarashada dhinaceeda lagala hadlin waxaa sharaf weyn noo ah annagoo maanta meeshaan ku wada sugan una nimid inaan u hambaliyeyno walaalaheenna qalin beddeshay walaalayaal waa mahadsantihiin hambalyada waan idinla qaybsannay laakiin waxaan idinka codsanaynaa arday kasta oo ka qalin beddesha dugsiyada sare ee cadaado ku yaalla ama galmudugba in uu galo jaamacadaha ku yaalla galmudug inuu galo jaamacadaha meesha uu ka qalin jebiyey si deegaankaasu uu u gaaro meesha uu hadafkiisu yahay oo ah in uu helo macallimiin aan qarash badan ku bixin oo meelo dheerdheer ka yimid oo dugsiyada jiilalka ka dambeeya waxbara sidoo kale waxyaalaha kale oo loo baahan yahay oo aqoon-yahanka looga baahan yahay si ay noogu soo kordhiyaan inaysan meelo shishe naga aadin waan ka codsanaynaa ardayda ka qalin jabisa waalidiinta sidoo kale waxaan leenahay dadaalkiina laban laaba waan aragnay dadaalkiina miraha uu dhalay maamulka iskuulka Suldaan Axmed Nuur sidoo kale waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin annagoo daanahay maamulka degmada mar walba waxaan idinla garab taaganahay hiil iyo waxaan rabaa saaxiibkay khayre oo dabcan wasaaraddii asaga nagala jooga wax badan oo uu ii sheegay inay wasaaraddu u hayso ilaahay la garab galay inuu asaguna Suldaan Axmed Nuur maadaama uu yahay iskuulka ugu fog ay ardaydaas aad aragtay ay soo aadaan macallimiintu ay waqti badan u soo lugeeyaan inuu mar walba deeqda waxbarasho ee la keeno iyo wax walba oo ku saabsan waxbarasho inay xoogga u saaraan salaan kadib hadal la ima reebin qof walba inta ka horeysay munaasabaddan wuxuu ka dhihi lahaa waa la iga hormaray in badan aad fadhiseen waad daasheen marka waxaan rabnaa inaan wax yar isxasuusino waxaan rabaa marka hore inaan hambalyada la qaybsado ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga sare Suldaan Axmed Nuur wiilal iyo gabdho iskugu jira marka hore waxaan idin leeyahay hambalyo dadaalkii faraha badnaa oo aad muddada dheer usoo dulqaadateen oo aad maantay halkaan ku qalin bedelinaysaan oo u gudbaysaan waxbarashada heerkeeda labaad intaas kadib maanta waxaan ku jirnaa gabagabada sanad dugsiyeedkan dhammaaday sanad dugsiyeedkii hore 2017 waxaan noo bilaabmi doonaa asbuucyada soo socda haddii ilaahay idmo sanad dugsiyeedka cusub 2019 sida wasaaraddu ay soo saartay maamulka iyo lala wadaagay ardadaba 4 bisha Agost oo ku beegan maalin Sabti ah waxaan noo bilaabmi doonaa haddii ilaahay yiraahdo sanad dugsiyeedka cusub
oo dhammaan galmudug sida wasaaraddu ay shaacisay ayagana waxaan rajeyn doonaa markaas inaan la qayb qaadano ardada iskoolaadka imaan doonta inaan la qaybsan doono haddii la idmo sanad dugsiyeedkeena cusub waana kugu hambalyeyn doonaa waxaan rabaa marka waalidka macallimiinta ardayda meeshan fadhisa maanta inaan ayadana kugu bishaareeyo hadiyad kale oo aan wasaaradda waxbarashada idiin hayso oo aan maanta qaas ahaan ardada dhigata iskuulkan Suldaan Axmed Nuur waxaa jirta macallimiin wasaaradda waxbarashada federaalka ah macallimiin ay qaadatay oo 500 arday ah 500 macallin ah oo lagu talagalay in lagu tijaabiyo oo ay ka howlgalaan waxbarashada dawladdu ay leedahay iskoolada dawladdu ay leedahay in macallimiin looga dhigo oo macallimiintaas ay noqdeen shaqaale dawladeed oo wasaaradda waxbarashada shaqaale ka tirsan ay noqdaan macallimiintaasna ay mushaar toos ah ka qaadan doonaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo ay noqdaan shaqaale dawladeed oo rasmi ah inay noqdaan 500 macallin galmudug waxa uga soo aaday 50 kamid ah 50 kaasna waxaan u qaybinay 5 degmo oo kamid ah galmudug degmada Cadaado waxa ku soo aaday 10 macallin oo kamid ah 5 iskuul 10 kaas macallin waxa nasiib u yeeshay iskoolka aan u qaadanay inuu macallimiintaas wax ka baraan waa iskuulka Suldaan Axmed Nuur macallimiintaas imtixaan la soo shaaciyay macallimiin Soomaaliya dhan jooga imtixaankii soo galay wala soo shortlist gareey imtixaan laga qaaday waa intii ku baastay intoodii ugu sareysay aan waxaan u qaadanay iskoolaadka halka macallimiinta inta kalena aan u transfer gareynay degmooyinka kale waxbarashada ayagana iskoolaadkan kala lamid ah iskoolaadkan waxyaabaha ku qaadanay oo iskoolaad kale oo la mid ah waxa kamid ah waa iskool marka hore public ahaa oo dawladdu ay lahayd oo haddana standard u dhisan haddana degmadii ku yaala ardaydii ugu baahida badneedna maanta ay dhigato waxaan rabnaa haddii la yidhaahdo sanad dugsiyeedkan cusub inay ku bilaabma doonaan macallimiintaas iyo macallimiin kale aan ku soo darnay ardadana waxaan rajayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waalidiinta inaan ka dulqaadi doono culayska oo bilaash wax lagu bara doono haddii la yidhaahdo waxaan mudnaanta koowaad iska leh ardayda meesha iskoolka ku yaala waxay ugu badan yihiin dadka iska danyarta ah u badan in badan la soo daala dhacayay inay wax bartaan waxbarashadooda aysan fiiga iskoolka aysan iska dhiibi karin marka waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo mar labaad iskoolkan wixii sanad dugsiyeedkan ka bilowda wuxuu noqon doonaa iskool dawladda iskool dawli ah oo dawladdu maamusho macallimiintuna waxay noqon doonaan macallimiin shaqaale dawladeed ah iskoolkuna wuxuu noqon doonaa maamul ahaan iyo macallimiinba ahaanba kuwo si gaar ah iskoolaadka gaarka loo maamulo oo barefadka inuu ka duwanaado noqdo iskool dawli ah oo shahaadadiisa iyo imtixaankiisa iyo waxa la wixii nationalkiisa iyo sar u qaaditaanka tacliintiisaba inaan si gooni ah xil iskaga saarno haddii la yidhaahdo maadaama uu bilow u yahay iskoolaadka dawliga ah oo dawladdu maamusho waxaa jira waxbarasho maanta heerka ay marayso iyo qiimaha ay leedahay waqti badan uma baahna in la iska sheego qof walba oo ogyahay waxaa laga yaabaa ardaydiina qalin jabinaysa qaar in la dhashay oo guryaha jooga oo waxbaran inay jiraan waa suurtagal maanta degmada Cadaado markii la qiimeeyay dadka da'da waxbarashada gaaray inta waxbarata 34% lagu qiyaas inta kale waxbarashada nidaamka kuma jiraan waxaan rabnaa marka hooyooyinkan sharafta leh iyo aabayaasha iyo ardayda meeshan jooga inaad ka qaadataan ololaha waxbarashada oo ardayda soo tashkiilisaan oo macallimiinta dugsiga quraanka la hadashaan oo aad tiraahdo qof walba waxbarashadiisa iyo da'diisa waa isku xiran tahay qofka hadduu da'dii waxbarashada ka weynaado laguma karo inuu maanta dhigto iskoolka soo aado macallimiinta dugsiga quraanka la hadla la shira waxaad tirahdaan macallin ardaygan gelina dugsiga quraanka dhigto gelina iskoolka soo aado si oo la jaan qaado ardayda la mid ah haddaan dhammaanteen wax wada baranno waxaan ka bixi doonaa jahliga iyo amni xumada iyo faqriga saddexdaas boosaada ay keento jahilnimadu haddii ilaahay ma harabnaa ardadeenaas inaad intaas ku baraarugsanaatan waxaa laydinka rabaa ardaydiina qalin jabisa inaan mas-uuliyad idin dirno ka wasaarad ahaan iyo tusaale u noqotaan kuwa idinka dambeeya ma is maqalnaa kow su-aasha midda ugu horeysa idin dirayna waxay tahay calankii iskoolka waa baaba'ay waa ujeedaan calanka iskoolka inaad beri soo taagtaan idinka rabaa is maqlaynaa
waxaan ka rabaa halkaas laba calan oo kala hooseysa calanka dalka ugu hooseysa kii galmudug oo ka hooseeya isku hoos babanaya halkaas inaan kasoo taagtaa waa mas-uuliyadaan saaray intiinaas waxaa kaloo inta ka rabaa qof kasta oo inta ka mid a iskoolkan ka qalin jebinaya iskoolka compound weyn uu leeyahay dhirna ma leh qof kasta inuu geed beeraan ka rabaa 14kiinaas mas-uuliyadna uu ka saaro uu kala dardaarmo ardada meesha jooga uu yidhahdo geedkaas wax kasta iyo waraabi biyihiisa aad u bixi maysid annagaa bixinayna geed soo tallaal geedaha weliba hoos ka leh meel space designka maamulka la qorsheyn doona qof walba iskoolkan ka baxa dafcaddiina iyo dafcad kastoo ka dambaysa waxaan rabnaa inuu geed tallaalo si uu asaga muuqiisa waa nagala baxay inuu noo reebo xasuustiisa haddii la yidhaahdo iskoolka markaas haddii qof kasta iskool ka baxa uu geed meeshan ka tallaalo wuxuu noqon doonaa qurux iyo har iyo hoos inta waa noqon doonaa adigana wuxuu ku noqon doonaa ajar aad hadhow aad heli doonto iyo hadhow markaa iskoolka kusoo laabato inaad tiraahdid iskoolkayga markaan ka baxay waa ugu horreysay geedkaas aga marqaatiye waa idin salaamayaa waqtigan ku lumay asalamu calaykum